Caawa waxaa la ciyaarayaa ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Premier League England waxaana ballansan kooxaha Chelsea iyo Arsenal. Haddaynu eegno afartii kulan ee u dambeeyay ay kulmeen labadan kooxood. Kooxda Chelsea wax guul ah may gaarin, gacanta sare waxaa lahayd kooxda Arsenal. Haddii aynu xilligan ka eegno sanadkanna waxa weeye ciyaaray ahaan iyo qaab ciyaareed ahaanba waxa aad u wanaagsan kooxda Arsenal. Laakiin kulli kulanka haddii uu derbi yahay laba kooxood oo isku magaalo ah u dhaxeeyo had iyo jeer xiisihiisa iyo xamaasadiisu marna ma go'do. Saadaasha qaar la bixiyay waxay sheegayaan kulli Arsenal inay kulanka ay badin karto. Hase yeeshee maadaama uu kulan derbi yahay oo derbi la dhayahay waxa weeye wax kalena oo ka soo noqon karaan. Arsenal lafteedana waa la diri karaa. Waan ognahay Arsenal horyaalka Premier League ayay u tartamaysaa meel fiican bay kaga jirtaa. Caawa inay badisaana waxay ku xiran tahay rajadeeda iyo ciriiri inay sii geliso kooxaha Liverpool iyo Man City oo kula tartamaya horyaalka. Marka waa kulan xiiso leh. Caawa hadday badiso waxay la wareegi doontaa horyaalka hogaaminta horyaalka Premier League England waxayna sugi doontaa kulanka ay ciyaari doonto kooxda Man City ilaa Brighton isna habeenimada Khamiista dhici doona. Kulankaas waa kulan xiiso leh. Arsenal ciyaaryahanadooda badankeedu iyada way wada joogaan. Cid ka maqan oo imika la sheegay ma jirto. Weli waxaa soo noqday ciyaaryahankii daafaca Jonathan Timber baa soo noqday oo xalay yaryar kula ciyaaray. Gool buu dhaliyay qurux badan. Marka isaga laftiisa waa laga yaabaa caawa inuu ka mid noqdo safka hore ee kooxda. Laakiin waa arki doonaa. Chelsea ciyaaryahankii waday ee dhabarka ku siday ayaa isagoo caawa dhaawac soo gaaray. Waxaa la leeyahay ma ciyaarayo. Waana suurtagal inuu ciyaaro laakiin waxay u badan tahay ninka Palmer inuu dhaawacmay oo aanu ciyaari doonin. Adigu dhaawacna wuu jiraa baa la leeyahay, xanuunna waa jiraa. Marka kay noqoto waxay u badan tahay ciyaaryahan Palmer oo xilli ciyaareed ku dhalsidii kooxda Chelsea inuu caawa kulankan derbiga uu ka maqnaado. Kulamada caawa Premier League la ciyaaray kaasa ugu mudan. Marka bal kulankaasina sidoo noqdo wayn eegi doonaa.